Assalaamu calaykum akhyaaray. Filimkan waxa uu ku bilaabmayaa Jack oo ah aabe waxaan waqti la qaadanayaa xaaskiisa isagoo la kaftamaya ayuu mar qura waxa uu si kaliya u arkayaa wax dhulka ku soo dhacaya. Dib waxa uu go'aansanayaa inuu soo eego si haddii ay dad ku jiraan uu badbaadiyo ama uu garab u siiyo. Markuu tago waxa uu arkayaa nin ku labisan dharka ciidanka waxaana uu garanayaa inuu yahay askari ka tirsan ciidamada cirka. Magaciisuna waa Sean. Kadib waxa uu sheegayaa siday wax u dhaceen waxayna isku raacayaan halkii uu shaygu ku soo dhacay. Isla markay tagaan waxay arkayaan aalad horumarsan wax walbana bedeli karta. aaladuna waxay bilaabaysaa inay Sean iyo Jack wajiyadooda taxliiliso iyadoo aad moodo inay dooranayso kii xukumi lahaa ama isticmaali lahaa. Kadib waxay ku soo dhawaanaysaa Jack isageena dooranaysaa. markiibana waxay bilaabaysaa aaladu inteedii kale inay burburiso isna shucaac ayay ku xidhaysaa si aanay waxba u soo gaadhin. Sean iftiinkii badnaa iyo aalada gacanta ugu jirta Jack keligiina uu xukumaya ayaa ula dhacay koomana waa u galay. kadib 10 sano waxaa soo baxay nin lagu magacaabo waardiye waxaanu badbaadiyay dadka magaaladiisa isagoo isticmaalaya aalado horumarsan lamana aqaan halka uu ka keenay. aadna waa loo hadal hayaa waxaanu noqday caan magaaladu meel walba ay kaga sheekaysatay arrinkiisa. isla waqtigaas uu caanka noqday waardiyuhu waxaynu arkaynaa Jack oo ka mashquulay wiilkiisa inta badanna aan ka soo qayb gelin maalmaha muhiimka ah ee iskuulkiisa sida marka uu wax sameynaya iyo wixii la mid ah. Tashaarlina waxa uu aad u jeclaa waardiyaha wuuna sawiri jiray marka la yiraahdo mowduuc ka hadal waxa uu ka hadli jiray aaladaha uu isticmaalaya waardiyuhu. kadib isagoo maalin ka sheekeynaya ayaa waxa soo gashay Maya oo ah arday cusub. macallimadii ayaana tiri soo dhaweeyay ardayda cusub kadib xiisadii ayaa dhamaatay. Tashaarli iyo saaxiibkii Berger waxay aadayaan dhanka iyo kubadda gacanta ama baseballka si ay ugu soo ciyaaraan sidii caadada u ahayd. aabihii umuu iman waxaanu ka mashquulsan yahay shir aan dhamaanba. kadib waxa uu isu diyaariyay inuu ciyaaro si waxa la ciyaaray Asoto oo ah mid necab Tashaarli waxaanu ku odhanayaa eryo aanu raali ka ahayn. kadib laabta ayuu kaga sii dhufanayaa kubaddii halka ayuuna ku guuldaraysanaya Tashaarli waxayna u soo kacayaan dhankii xaafadooda iyagoo ka xun wixii helay. Tashaarlina aad ayaa u niyad jabsanaysa waxa uu arkayaa dhammaan TV-yada oo ka hadlaya waardiyaha iyo aaladaha uu isticmaalayo. TV-ga lagu soo casuumay nin ka madaxa shirkadaha hubabka sameeya ee ciidamada la shaqeeya oo lagu magacaabo Ansel waxaanu ka xumaaday in shirkadiisa hub laga iibsan waayo maadaama uu waardiyuhu yareeyay dilalkii iyo dhicii joogtada ahaa. waxaanu ku doodayaa waardiyuhu waxa uu isticmaalayaa aalado horumarsan oo la arag iyagoo kale lacala haddii uu xumaado oo rabo inuu dadka laayo way adkaanaysaa in wax laga qabto khibradiisa iyo aaladaha uu isticmaalaya awgeed. Tashaarlina waxa uu ahaa mid TV-ga daawanaya kadib hooyadii waxay la hadlaysaa Jack waxayna u sheegaysaa inuu maanta ku beegan tahay dhalashadii Tashaarli ayna waajib tahay inuu waqti la qaato. kadib sidiisa ayuu ku odhanayaa shir baan ku jiraa ee aanaa u imanaya. Tashaarlina waa uu iska ogaa inuu aabihii odhanaya intaa uuna iska ilooba maalmaha muhiimka u ah isaga. kadib hooyadii ayaa dejinaysa waxayna ku odhanaysaa maanta isagaad u tegaysaa waqtina la qaadanaysaa. maadaama ay kala tageen Jack iyo xaaskiisu waxay u geynaysaa Jack markiibana waa uu soo dhaweynaya isagoo ka cudur daaranaya mashquulkiisa tirada badan leh. uu keenaya hadiyadii gacantii baseballka lagu ciyaari jiray. hadiyada kadib Tashaarli waxa uu ku odhanayaa xagaanka iyo guuldarada ugu badan bay iga soo gaadhaa waa iyada. gurigiina waa uu sii qurxiyay isagoo cuntooyinka fudud iyo sharaabna u keenay si uu waqti badan ula qaato. markiiba waa lala soo hadlaya waxaana loo sheegayaa inuu imaado. kadib wiilkiisi waa uu ka xanaaqaya waxaanu ku odhanayaa kaliya waxaa tahay aabba ka fikiraya naftiisa oo aan haba yaraatay ahmiyad siinayn wiilkiisa. kadib hooyadii ayuu wacayaa si ay ugu timaado xaafadana u geyso. samaba la hadlayo hooyadii ee Berger ayuu la hadlayaa wuxuuna u sheegayaa inuu caawa fursad haysta ayna tahay inay iska xaraabaystaan. kadib markiiba waa uu imanaya Berger, Maya iyo Lucy wuxuuna Berger ku odhanayaa waxaan kaa rabay casharadii aad ka qaadatay macalinka berri imtixaan baa la gelayaa. kadib hore ayuu soo gelayaan isna albaabkii ayuu xidhayay weliba isagoo ka labalabaynaya maadaama uu ka helay Maya waxna u sheegan karin. wuxuuna ogaa inay hore iskuulka uga tagtay isagoo raba inuu mowduuc u furo ayuu albaabka gadaashiisa ahi isfuraya wayna la yaabayaan. kadib dhankii albaabka ayay imanayaan waxaana ku xidhan password. Lucy oo ah madaxa nasiibka ayaa isku dayaysa inay ku nasiibso maadaama ay ahayd dhalashadii Tashaarli wayna ku guuleysanaysaa. kadib markay galaan waxay arkayaan inuu wiish yahay kadib buttonka ayay taabanayaan waxaana uu la soconayaa si xawliya ama xawaaro sare leh. waxayna tegayaan meel aad u hooseysa. isla markay galaan waxay la yaabayaan aaladaha casriga yaala iyo weliba kubaddii uu ka soo qaaday Jack meeshii cidlada ahayd. isla markiiba waxay tegayaan kombiyuutarkii laga maamulayay. Tashaarli ayaana taabanaya si waxay arkayaan xogtii waardiyaha oo dhan wuxuuna ogaanayaa inay joogaan xaruntii rasmiga ahayd ee waardiyaha. asxaabtiisuna waxayba ku odhanayaan aabbaha ayaa ah isna kama yeelayo wuxuuna ugu jawaabayaa aabbahay waa mashquul iska daa inuu noqday xataa ma caawin karo. marka kale waxaynu arkaynaa Ansel oo Sean ku canaananaya gaabiska uu ka gaabiyay inuu raadiyo aaladan uu haysto waardiyuhu wuxuuna ku odhanayaa lacag badan baa igaga baxday baadhitaankaagan aan midho dhalka lahayn.
kadib Sean waxa uu ka odhanayaa kaliya 1 week ayaa ii hadhay anaana ku keenaya. Charlie iyo saaxiibadiina waxay weli ku dhex jiraan meeshii waxayna arkayaan shaashada ay wax walba ku jiraan. Kadib Lucy ayaa dooranaysa shandad weyna u imanaysa mid walbana waxa uu dooranayaa wax u gaar ah. halka Charlie ay nasiibkiisa u noqonaysa saacad screen touch ah uuna wax walba ku qabsan karo. sina waxay taabanaysaa badhankii shandada se waxay bilaabaysaa inay la duusho waxayna isku dayayaan inay soo dejiyaan. Charlie saacadiisa ayuu tijaabinayaa mise si kaliisa ayay u ridaysaa laser waxayna ku dhacaysaa Maya se maadaama ay xidhnayd dharka wax difaaca waxba kuma noqonayso. ina arkayaan Barker oo xidhan garaan ama wareegto kolba meel ka soo saaraysa madaxu gelinaya madaxiisu meel kale ayuu ka soo muuqanaya. Charlie waxa uu arkayaa koobkii waabihii hadiyada ugu keenay isla markiiba waa uu jabinaya wuxuuna la yaabayaa awoodda saacadda uu xidhan yahay ay leedahay. kadib Barker waxa uu ka dalbanayaa Lucy maalinka xafladda inay la ciyaarto se waa ay ka diidaysaa. waxayna ka fikirayaan wixii ay sameyn lahaayeen maadaama ay ogaadeen sirtii waardiyaha waxayna go'aansanayaan inay aaladahan bar ka mid ah u isticmaalaan imtixaanka ay bari galayaan si ay uga gudbaan. dib iskuulkii ayay galayaan waxaana la soo hordhigayaa imtixaankii waxayna la soo baxayaan grantii ama wareegtadii iyagoo midba uu haysto kaliyana warqad ayay xagga hoose ka tusayaan Lucy oo iyaduna joogta library-ga si ay ugu soo sheegto. wayna ku guuleysanayaan markay ka soo baxaan imtixaankan waxay garaanta ku ridayaan mid khasnadooda midna iyaga qaadanaya. kadib waxa la gaaray ciyaartii gacanta ama baseballka. Charlie waxa uu isu diyaariyay ciyaarta isagoo waliba xidhay saacadii si ay u caawiso. kadib laba ayuu ka dhalinayaa markii saddexaad isagoo tourist leh ayuu arkayaa Maya oo wiil kale la hadlaysa. wuuna ka xanaaqayaa kubaddii iska daa inuu qabtay saaxiibkii sida baaluutada uga dhex baxaysa gacantiisa. si ayuuna kaga guuleysanayaa Asoodo aad ayuuna u farxaya. kadib waxay ka xaysanayaan kuna ciyaarayaan gaarigii waardiyaha se waxa markiiba aaladahan signalska bixinayaan dareemaya Ansel wuxuuna xadidayaa meeshii garaanta iyo saacadii iyo gaarigu waa yaaleen maadaama ay yihiin aalada aad u sareeya. Charlie ayaana gaariga xawaare ku wada waxaana soo daba dhigtay askartii maadaama loo ogoleen xawaaraha inta lag in lagu socdo. Charlie waxa uu ka soo bartay gaariga gimiskii uu ciyaari jiray. kadib waxa uu taabanaya button kaasi oo tusinaya sidii uu uga caawin lahaa askarta waanu ka guuleysanayaa oo askartii waa iska istaagaysaa. waxaana tegayaan gurigiisii si ay u bartaan isticmaalka aaladahan. Charlie waxa uu rabaa inuu la hadlo Maya una sheego inay kala soo qayb gasho xafladda ay qabanayaan iskuulkiisu. se waa uu ka labalabaynaya waxayna siinaysaa koobkii uu jabiyay iyadoo weliba u soo hagaajisay maadaama uu qaali ahaa. wuu mahad celinayaa sidoo kale raaligelin ayuu ka bixinayaa khaladkiisa waxaanu weydiinayaa sababta ay uga tagtay iskuulka intaasoo dhanna uga maqnayd. kadib waxay ugu jawaabaysaa magaalada ayaan ka gurnay ee wax kale maaha. markiiba waxa meesha soo ogaaday Ansel wuxuuna u soo diray Sean iyo ciidamo kale waxa ugu weynaa u socdaana waa aalada kubadda ah. kadib waxay arkayaan wiishkii oo furan wayna soo raacayaan. isla markiiba waxa dareemaysa Maya iyada iyo Charlie meel ayay ku dhuumanayaan halka habka kaliya ay kaga bixi karaanna waa wiishkana waxa soo xidhay Sean. kadib Lucy oo isu diyaarinaysa xafladda dhacaysa ayaa waxa uu soo galaya Ansel iyo ilaaladiisii waxaanu ku odhanayaa haddaanad rabin inaad dhimato soo bax markaba waa ay soo baxaysaa. intay la hadlaysay ayaa waxa imanaya Barker walaalkii isna waa lala xidhayaa waxayna weydiinayaan yaa jooga meesha waardiyaha. waxayna ku odhanayaan kaliya 3 markiibana Ansel Sean ayuu u sheegayaa waanu u imanayaa. kadib qaybta microphone-ka ayuu kala hadlayaa waxaanu ku odhanayaa haddaad soo bixi weydaan badda keeni weydaan waxaanu daraynaa halkii loo badnaa Lucy iyo Barker walaalkii. kadib Barker wuu naxayaa waxaanu go'aansanayaa inuu siiyo kubadda uu badbaadiyo walaalkiisa. Charlie ayaa ku odhanaya hub baynu haysanaa wayna iska dhicin karnaa. kadib Barker waa uu dharbaaxaya wuxuuna u tegayaa Ansel se waxa uu arkayaa hubkiisu inuu yahay magnet oo wax walba bir ah qabsanaya. isla markiiba kursi bir ah ayuu ku dhuftay Ansel isla kursigii ayuuna ku soo qaadaya isagoo xidhxidhan. kadib Charlie waxa uu weydiinayaa maxaad ku falaysaa ama ay ku tarisaa aaladani. uu ku yidhi waa aalad cusub waxayna bixin kartaa xaddi koronto ah oo aad u badan lagana faa'iideysan karo. kaliya waardiyuhu waxa uu isticmaalaa inuu dadka ku badbaadiyo se intaa way ka badan tahay heshiiskii aanu u soo bandhignayna waa uu diiday. kadib Jack isagoo la hadlaya gacan yarihiisii ayuu kaamirada ka arkaya gurigiisa oo Ansel joogo inankiisina uu ku xayiran yahay. kadib dhanka guriga ayuu u kacayaa. ka kale Ansel ciidankiisii ayaa imi wayna ka fureen meesha kubaddii ayaanu ka qaatay. isla markuu saa u eegay waxa uu arkay inay tahay fake. waxa ka dhacaysa kubaddii waxayna go'aansanayaan inay la dagaalamaan ilaa inta ay ka qaadanayaan mid walbana waxa uu adeegsanayaa hubkiisii. Charlie waxa uu ku ridayaa laserkii saacadiisa wuxuuna awoodayaa inuu kubaddii gacanta ku dhigo. kadib waxay u cararayaan dhankii wiishka se waxa gacanta ku dhigaya Sean waxaanu si nabad leh uga qaatay kubaddii. wuxuuna u dhiibayaa Ansel wuxuuna amrayaa inuu dilo caruurta wuuna ka ogolaanayaa se waxa uu raacinayaa adna waad la dhimanaysaa. markiibana Charlie iyo saaxiibadii waxay dejinayaan kaarto ama fikrad.
Barker ayaa awood u yeelanaya inuu xukumo saacadda birta ah ee uu xidhan yahay Ansel wuxuuna ka tuurayaa kubaddii markiibana Barker walaalkii ayaa xidhanaya saacaddii Charlie wuxuuna kubaddii ku dhex ridayaa garaantii iyadoo ka soo baxaysa garaantii kale ee taallay iskuulka mid ka midna ciidanka garan maayo halka ay tagtay kubaddii. Dib waxaa soo gelaya Jack oo ahaa waardiyaha Anselna waxa uu ka odhanayaa ii sheeg halka aad geysay kubaddii markiibana Jack waxa uu adeegsanayaa aaladii difaaca oo ku difaacaya Charlie iyo saaxiibadii si ay u baxsadaan si Ansel ayaa arkaya dhar kale oo Jack haysto markiibana waa uu xidhanayaa wuxuuna Jack ku odhanayaa haddaad ii sheegi weydo halkay taallo waan ku dilayaa. dib waa uu sheegayaa keliyana meesha waxay kaga baxayaan saddex markay sidaa uga baxaan meesha waxa uu Ansel ku xidhayaa Bumbo markiibana Lucy ayaa albaabka sare furaysa waxayna xidhanaysaa shandadeedii wayna buubayaan ama duulayaan intaanay ku qarxin meeshu kalena waa inay dhaqso u tagaan iskuulka si ay u soo badbaadiyaan saaxiibkood Barker si Ansel iyo Barker waxay gaadheen iskuulkiisa markuu furay khaanadii waa uu ka waayayaa kubaddii. Anselna waa uu xanaaqayaa markiibana waxa uu imanaysaa maamulihii iskuulka waxayna u sheegaysaa in khaanadaha la nadiifiyay keliyana sug inta lagu keenayo kubaddaadii. waxa meesha yimi ama soo gaadhay Jack waxaana uu ka odhanayaa Lucy iyo Charlie idinku sii fadhiya soo bixina waxa uu soo xidhay samaacadihii Lucy si uu ugala hadlo ayna u hagaan ilaan waa markii ugu horreysay uu imaaday iskuulkeeda. xafladda si Ansel ayaa qabanaya kubaddiina waa uu ka qaadanayaa ibana waxa soo gelaya Jack wuxuuna la dagaalamayaa Ansel si waxa uu rabaa inuu mashquuliyo intay u soo kacayso jaakadiisu isla markiibana waxa gaari ku soo gelaya Charlie Barkerna kubaddii ayaa uu ka tuuraya Ansel waxaana qabsanaya Jack awoodaya inuu meel fog ku tuuro Anselna waxa uu qabsanaya Charlie isagoo kula heshiis kubadda haddii kale kan ayaan dilayaa dibna dhulka ayuu ugu tuurayaa si uu uga baxsado Charlie'na waxa uu bambo ku dhufanaya Ansel iyo kubaddii oo iswata halkaas ayayna ku qarsoomayaan labadoodiba inay sidaa kaga adkaadeen Ansel iyo ciidankoodii intaanay kala tegin ayuu ka dalbanayaa Charlie inay maayo la ciyaarto riyadiisana waa u rimeynaysaa. kadib Jack iyo Charlie waxay u baxayaan dalxiis Charlie waxa uu noqonayaa caawiyaha waardiyaha oo aabihiiba ah kala shoonna waxa uu bedelay Ansel oo isaga shirkadii la wareegay halka uu Ansel liinta ku cabay meel cidla ah kamana soo bixi karo. Inkeenu halkaas ayaa uu ku dhamaaday maanta waxaan filayaa inaad ka heshay hayloogna dhahdo subscribe like share intaad intaas sameynaysa annaka ma caajisay inaan maalinkaaga farxad kaga qayb qaato. Wassalaamu calaykum.